munaasabadan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo layguna casumo wax kale isuma taagin waxaan rabaa inaan la qaybsado dhibaatadii badnayd dhammaanteena taabatay intii hadashayba ayna taabsiyeen oo ugu horeeyo doctor Weheliye iyo intii ka dambeysay in naafo ah iyo in caafimaad qabtay intaba qof walba oo meeshan ka soo qayb galay way taabatay waana taabatay dhammaanteen arrimihii laga hadlay oo runtii aad iyo aad u qiimo badnaa laakiin waxaan rabaa maanta aniga ase dhakhtar marka hore laba maxaa la yiraahdaa jaamacad ma qabno imkaaniyaadkii aan waxbarashada looga qayb qaadan lahaa gaar ahaan qalabkii dadkii ama indhaha la'aa ama maxay tahay aragga la'aa waxyaabihii jaamacaduhu ma haystaan imkaaniyaadkaas dhammaystiran lama hayo laakiin waxaan ballan qaadaynaa ase jaamacad ahaan oo anigu guddoomiyahan ka ahay in aan siino free education inta naafada ah ee wax baran karta naafo markaan leeyahay waa kuwa lugaha ka go-an kuwa maxay tahay dhibaatooyinka qaba iyo xataa caruurtooda waxaan ballan qaadaynaa inaan waxbarasho siino haddii ilaahay yiraahdo oo aan waxba lagu xirayn oo free of charge waxba ku xirnayn shuruudna ku xirnayn taas runtii aad iyo aad ay ii taabatay kelmadihii kala duwanaa oo maanta meeshaan laga soo jeediyey hadal kale uma istaagin waxaan rabay keliya inaan gudbiyo fariintaas inaan gudbiyo haddii alla yiraahdo waxaan rajaynaynaa hawshaasna sidaan u ballan qaadnay inaan u dhammaystirno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu